wafdi wasiira uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland علي محمد ورعده way weheliyaan wasiirka warfaafinta wasiirka cadaaladda wasiiru dawlaha duulistiya hawada ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood waftigan ayaa qayb ka noqon doona xalinta shaqaaqada dhawaan ka dhacday deegaanka Dharkayn ee koonfurta gobolka Sool oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu ka socday iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana waftigan ku soo dhaweeyay magaalada Laascaanood maamulka gobolka Sool iyadoo xaaladihii u dambeeyay shaqaaqadaasi uu ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine waxaan ku soo dhaweynay maanta oo ku soo biiray ergadi u timid nabadeynta beelaha walaalaha ay ku diray koonfurta magaalada Laascaanood ee uu soo diray madaxweynuhu Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Siraayo wafdi balaaran oo wasiira oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo wasiiru dawlaha wasaaradda duulista saraakiil kale oo dhinaca amniga wasaaradda arrimaha gudaha wafdigaasi oo maanta soo gaaray magaalada Laascaanood waxaan u socdaan xalinta iyo maaragtay dhamaynta shaqaaqadii dhawaan dhacday waana culayska ay leedahay ka turjumaysaa maanta iyo sida uu danaynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in dadkiisu marnaba aanay soo hooyin ama isu dilin gacmahooda colaadana la dhamaystiro marka waxaan leenahay wasiir ku soo dhawaada gobolka anagu waxaad noogu timaadeen iyadoo ay dawladdu ama saraakiishii ka hooseysay qaranka gobolku iyo dawladda iyo wafdigii la soo diray salaadiinta iyo guurtida lahaa ay gacanta ku hayaan nabadgelyahan maanta magaalada Laascaanood aad bay u degan tahay goobihii wax ka dhacayna ma intii magaalo iyo tuulo weyn ahayd waxaan ku haynaa ciidanka qaranka jooga marka laga bilaabo Dharkayn dabataag dhumay iyo agagaarka magaalada Laascaanood hase yeeshee waxa dagaal ka dhacay goobo kayna oo miya ayaa la tagay shabeeltooda inta taasa keentay marka inuu maalin socdo dagaal wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Ali Maxamed Waracade ayaa dhankiisa ka hadlay ujeedka socdaalka wafdigan uu hogaaminayo taas uu sheegay inay daaran tahay in shaqaaqada u dhaxaysa beelaha walaalaha ee ku dagaalamay koonfurta Sool isagoo digniin u doray in la joojiyo colaadaasi waxaan soo gaarnay magaalada Laascaanood gobolka Sool sida barsaabku sheegay waxa runtii waxyaabo naxdin loo ayaa ka dhacay gobolka oo runtii loo baahnay ka dawladahana waxaan jecel inaan ka qaadano wixii qaranka naga aadan qaran ahaan dadka shacabka marka hore waxaan ugu baaqaynaa inay nabad halgeeda ku soo celiyaan wax kale oo sheegaynaa in dawladdu ay gacan adag wax kaga qaban doonto lama eegan karo shacabka reer Soomaaliland in si macna la'aan ay maalin walba ugu dhintaan kaymaha magaalada hareeraheeda waxaanu gelin doonaa awood ciidan cid alla cidii u hoggaansami weyda awaamirta dawladdu waxay noqon doonaan kuwa dabka la saaro haddii alla yiraahdo wixii khasaare ay ku yimaadaan waa mid iyagu ay isu qabi doonaan bay noqon doontaan cidna la weydiin doonin sida awgeed waxaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaan naftooda iyo maalkooda iyo sharaftooda waxaan kaloo runtii u mahadnaqayaa odayaasha ku hawlan hadday yihiin salaadiin hadday yihiin guurti hadday yihiin xubnaha kale ee isxil saaray culimada garaadada ayaan ugu mahadnaqayaa waxaan se runtii maanta aan halkan u nimid inaanu wixii loo taagi waayo aanu gacan wax kaga qabano dhinac kasta ahaado cid alla cidii u hoggaansami weyda nabadda iyo awaamirta qaranka iyo dadka isu xil saaray ee arrinta ka shaqeynaya waxaan ula tegi doonaa gacmaha wixii ku yimaadana iyaga ka mas'uul ah Mawlid Ali Star TV Laascaanood